baan xusaya dhaqankeenu maaha ka ugu fiican ee ummadi ay ku dhaqan ka ugu xunna maaha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Khadar Nuur Ismaaciil. Maanta waxaan jeedinayaa meelo uu ka khaldan yahay dhaqankeenu. Waxyaabooyinka ka khaldan dhaqankeenu horta mid baan xusayaa. Dhaqankeenu maaha ka ugu fiican ee ummadi ay ku dhaqanta ka ugu xunna maaha. Laakiin waxaa jira meelo amba qodobo ay dhaawacday dhaqankeenu. For example, meelaha waxa marka horta intaanan meelaha gelin marka ummad la qiimeynaya dhaqankeeda meelaha lagu qiimeeyo de meelahana de badankiin waa iska wada garanaysaa. Videogii detailed buu inaga noqonaya haddaynu isnaala meelahaas oo dhan ka jawaab. Waxa muhiima inaan meelaha xuso marka ummad dhaqankeeda la qiimeynaya meelaha lagu qiimeeyo waxa ka mid ah sidee bay u dhaqmaan ummadaas. taasi waa kow. maxay aaminsan yihiin ummadani waaye shaqa maalmeedkoodu nooceeba u qaybsamaan amba lifestyle-koodu waa noocee. cuntooyinkay cunaan ummadaasi waa cuntooyin maxay ah. meelaha noocaasa ayay ummad marka dhaqankeeda la qiimeynaya lagu qiimeeyo. waaye waxyaabooyinka haddaba ka khaldan ee aan doonaya inaan magacaabo ee dhaqankeenu uu ka liita waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee aynu dumarkeena ula dhaqanno. For example, homework amba shaqada guriga ka jirta dhaqankeenu wuxuu amrayaa in dumarku ay fuliyaan. taasina waa caado amba sifo laga qurux badan yahay. waxaa tusaale inoogu ah nabiga calayhi salaatu wasalaam. wuxuu caawin jiray xaasyadiisa qoysku ka qoodi jiray sidii Caasha inoo sheegaysay radiyallahu anha. waaye hal abuurista creativity-ga wax lagu yiraahdo English ayaa ku yar dhaqankeena. For example, waxa taas tusaale aad u weyn u ah haddaynu eegno mealskaynu qaadanaa amba cuntooyinkaynu maalin kastaba qaadanaa waa same. taas marka analyze-kii amba sidii aynu u taxliilinaynay dhaqankeenu waxay ku yacni suuraddii quruxda badnayd ee dhaqankeena laga doonayay ma tusiso. inaynu mubdiciin noqono inaynu ummad hal abuur le noqonana waa shaqo inagoo loo baahan yahay gaar ahaan haddaynu dhalinyaranahay. taasi waa kow. taasi waa labaad. qodobka labaad ee meeluhu ka khaldan yahay. qodobka saddexaad ee aan kusoo gabagabeynaya message-keena waxa weeye ma nihin dad hogaamiyaala ee waxaynu nahay dad maamulayaala. afkaarta waa la kala duwanaan karaa laakiin dadka maamul sidaynu u maamulna ummadu afrikaan wax u maamushaa way iskaba yartahayba haddaanay jirinba. laakiin hogaaminimada amba alqiyaada waxaan loo yaqaan baalna leadership ayaa aad ugu yar. taana inaynu kobcino farsamadeenni yeelana ayaynu doonaa. anigu waa Khadar Nuur Ismaaciil. anagaana gudbinaya fariinta. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.